guriga cuqaashu iib maaha guriga cuqaashu guri kale laguma bedeli karo guriga lamana iibin karo lamana waxayn karo dadweynihii loogu shaqaynayay iyo 300 ee oday ayaa khusaysa ninka guriga uu iibsaday la leeyahay gurigaaga iska hayso saaxiib iska hayso lacag haday ka baxdayna dadka ay kaaga baxday u doono bara saabkana waxaan ka codsanaynaa hadii lagugu marmarsoonay isaga iyo ku jurgaleeyay ka noqo intaas wadada loogu shaqeey dadkii way ku hor imanayaan xafiiska bara saabka loogu shaqeynay way ku hor imanayaan arrinka waxaan leenahay wax ka suurtagala waxba yaraatay ma jirto sagaalkaanina waxba kama jiraan waan saxiixnay ilaahay ma aragtaa ina arraweelo nin qaaliya ku dhalay waa nin xeerbeegtiya ku dhalay adeer lacagtaada meel u dayo ina ka gurigan waxba lagu bedelay leeyahay ina kale waxaan leenahay gurigaaga cusbaa waad haysataa iska hayso gurigaaga annaguna gurigayagii waan haysanaa waan leenahay magaalada Boorama saaka waxa shir jiraayid mar kale ku qabtay xubno kamid ah cuqaasha gobolka Awdal iyagoona u jawaabaya cuqaal maali dhaweyta soo hadlay isla markaana sheegay in guriga cuqaasha gobolka Awdal ee la sheegay in la iibiyay arintaasi aanay waxba ka jirin balse laakiin taa bedelkeeda ay tahay in guriga lagu bedelay cuqaashani saaka hadlay waxay sheegeen inaanay gabi ahaanba wax ka ogeyn guriga lagu bedelay iyo sidoo kale iibka lagula kacay gurigaasi waa sida ay hadalka u dhigeen waxaanay digniin kama dambayso u direen isla markaana ay ka codsadeen arintaasi inuu dib uga baxo taliya Raweelo wiilkiisa oo la sheegay inuu guriga iibsaday sidoo kale waxay halkani kala hadleen isla markaana baaq u direen barasaabka gobolka Awdal oo ay sheegeen inay mudan tahay in haddii arintani uu ku jiro iyo haddaanu ku jirinba ay tahay inuu arintaasi ka soo hadlo isla markaana arintaas cadeeyo cuqaashani oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya isla markaana sheegay arintani haddii laga noqon waayo inay meel kale gaarayso sidoo kalena baaq halkani uga diray wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxay hadaladoodu u dhignaayeen sidan gurigan la sheegayo ee guriga caaqilada la leeyahay caaqiladu ma lehe caaqiladu dadkay ugu shaqeeyaan madaxweynuhu madaxtooyada meesha la yidhaaho ugu shaqeeyaa dadka isagu ma laha barasaabku guriga barasaabka ayuu ugu shaqeeyaa dadka gobolka ku nool caaqiladana guriga 8 mitir ayay ugu shaqeeyaan dadweynaha ay ka weliyeen dadka hay u shaqo dadkuna waa kala gooni nimankaan soo sheegay iyadoo hay'adaha dawladda kala faqraba u shaqeeyaan laakiin caaqiladu waxay u shaqeeyaan kii ariga jiray kii looda jiray kii beerta jiray iyo caruurta dhulka isku dila ayaan meesha lagu kala dhaxdhaxaday saddex isha ka hor halkaas 80 qof baan anugu ugu caynay anuuna dankalayn oo caaqilada kamida xeerna kuma lihi laakiin 80 ka oday baa yiri annaga soo doorto yiri halka noogu shaqeey caaqil nimanka loo shaqeynayay ma yaqaanaan hay'adiyo meelo kale waa ninka gabreega sidoo soo dalaq leeyahay halkeen kuugu imaadaa yiraahdo halka iyagu kaalay buura la tagiyo annagu ma ogin guri la iibshay iyo guri kale sheekadan u baan maqlaynaa guriga lamana iibin karo lamana waxayn karo dadweynihii loogu shaqaynayay iyo 300 ee oday ayaa khusaysa ninka guriga uu iibsaday la leeyahay gurigaaga iska hayso saaxiib iska hayso lacag haday ka baxdayna dadka ay kaaga baxday u doono halkii u doono bara saabkana waxaan ka codsanaynaa way ku khusaysaa arrinkani haddii lagugu marmarsoonay isaga iyo ku jurgaleeyay ka noqo intaas wadada loogu shaqeey dadkii way ku hor imanayaan xafiiska bara saabka loogu shaqeynay way ku hor imanayaan anuu berri markaan 3 cisho kadib waanu yeeri doonaa halkaasaan guri ilaa meel aan fadhiisiyo ma jirino meel garamayaan halka xafiiska bara saabkan iyaan warka ugu qabanay adiga war badan looma baahno wixii run ah ee xaqiiq ah ku dhaqano arrinka laga noqdo oday iyo sheeko iyo cid baa loo jeedaa ee waxaasi waa wax hana soconaynin gurigaasi iib maaha cidii iibsatayna ha ka noqdo haddii iibsatay haddii cid lagu bedelay annoo ma garanayne nin walba waxaagee hayso caaqiladu dadweynaha u shaqeeyaan
gobolka awdal 300 iyo googo baa ka shaqeeya oo nin guriga yar bay lahaayeen gurigaasay wada eeganayeen marka loo baahdo de kolba in baa fadhiisan jirtay intii maaragtaa de wax ka dhaxeeyaan wax ka jira iibka ma jiraan war sagaalka nin ee waan iibinay yiri ya wax suurtagala maaha ina ka guriga iibsadina waxaan leenahay ee uu bedeshay leeyahay war gurigaagii iska hayso gurigaagii arrinkaas ninka tagooga ku jira inuu sugi doona waxaan leenahay war nin walba wixiisa haysto barasaabka waxaan leenahay war barasaabkii gobolka tahay aqilada iyo barasaabka way wada shaqeeyaan had iyo jeer ragga wada shaqeeyo weeye gobolka ka shaqeeya adiguna waxa weeye arrinka waad ku jirtaa baa la leeyahay arrinka waad ku jirtaa baa la leeyahay war waxaan leeyahay haddaanad ku jirin xasan ciidow cadde oo waxa tiraa war aanu kuma jiro haddaad ta hadli weydo ka hadli weydo de waxa weeye anagu waxaan leenahay waa uu ku jiraa arrinka waxaan leenahay wax ka suurtagala haba yaraatee ma jirto sagaalkan inna waxba kama jiraan waan saxiixnay ilaahay ya war ninka maaragta ina arraweelo nin qaaliya ku dhalay war nin xeerbeegtiya ku dhalay adeer lacagtaada meel u dayo war saxaafadeedkan ku qabanayno wuxuu daba socdaa arrimo baryahan ba ka socday magaalada Boorama waxaad arkayseen cuqaal miidiyaha isugu jawaabaysa wuxuu yiri sidaan waanu garanaa hadday gacantu saa tahay sirba cirib ku leedahay wuxuu kaloo yiri sagaaro xaar muuqan doona ayay aastaa anna waxaan ku darayaa run sheeg bala sheeg rasmiya inuu yahay la isku raac waxaan ka hadlaynaa maanta annagu ma rabno inaan dad soo kicinno inaan cuqaal badan soo kicinno laakiin annagu dareenka iyaga ayaan maanta halkan rabnaa inaan ka soo jeedino waxaad maqlayseen laba caaqil oo wax sheegay qayladhaan fidiyey sheegayna gurigii 300 ee caaqil ka dhaxeeyay in la iibiyey arrintaana aw gudoomiyaha gobolku ka dambeeyo wax kale ma ay sheegin cid ma ay cambaareen cidna ma ceebeen waxay arrintooduna ahayd fariin ay u dirayaan 300 ee caaqil ee ku magacaaban guriga inay leeyihiin tii waxay dhalisay sagaalin oo kale oo caaqil oo kale ay ka daba yimaadaan ay ka daba hadlaan iyaga oo beeninaya cambaareynayana warkoogii iyagoo si weliba khayral caadiya nimankii warkaa sheegay u cambaareynaya siba si gaara u taargarisanaya cabdi axmed waxaan leenahay waxay yidhaahdeen nimankaasi been bay sheegeen guri la iibshayna ma jiro laakiin guri baan ku bedelay baa layidhi waxa isweydiin leh waan garan karaa gurigii waa la iibiyey oo guri kaloo ka fiican baa lagu iibiyey waan garan karaa gurigii waa la iibiyey oo guri cusub oo kale lagu dhisayaana waan garan karaa laakiin guri lagu bedelay bal aqliga dadka sida loo caayiyo hadeega ta kale waxa yaab leh waxaan arkaynaa iyagoo furisita oo waliba waa ka gurigii furihiisina waa sidanaa wuxuu yiri ninkii doodaan baa wuxuu yiri ogaadeen damiinkama ahayo dirsaday hawsha bal nimankan iyaga yaa xilkan saaray awoodan iyagu huuman
iyagu kuway yihiin maxay yihiin iyagu goormay iyagu noqdeen madaxdii cuqaasha hogaamiyayaashii cuqaasha haldoorkii cuqaasha goorma iyaga yaa halkee loogu yaa u magacaabay xilkaa ayaa iyaga saaray waa wax cajiib oo lala yaabo bal horta iibka iyo bedelku soo hagaadhay iyaga xilkan yaa saaray ta kale caqligaas cuqaasha kale caayaya waxay yidhaahdeen 300 caaqil sagaalka iyagana hogaamiyayaal u ah 300 caaqil waxna ma arkaan waxna ma oriyaan waxna ma diidaan waxna ma ogolaan karaan annaga indiya dhigaba u ah annaga wax u saxeexayna yani waa la yaab oo wax la yaab awoodda intaa leh yani qaabka isla weynaanta caynkaas waa yani wax la yaabo waxaan kaloo leenahay waxa weeye waxay yidhaahdeen arrintaa annagaa gallay barasaabkuna shaqo kuma leh waa sax arrintuna iib maahe waa guri lagu bedelay inaka gurigan waxbaa lagu bedelay laleeyahay ina kale waxaan leenahay gurigaaga cusbaa waad haysataa iska hayso gurigaaga annaguna gurigayagii waan haysanaa waan leenahay waan leenahay bedelkaana waxba kama jiraan kol haddaan lacag lagaa qaadin oo la yidhi gurigunbaa guri lagu bedelay dee waaba arrin fudude waxaa la yidhi war jiraaba cakaaru imane waxaan leenahay gurigaagii waad haysataa gurigaaga ku ekow ta kale waxa la yaab leh gudoominka hadduu mas-uul noqdo ninka hawl loo magacaabo ee ummad mas-uul looga dhigo siiba imika gudoomiyaha gobolka lama odhan gudoomiyaha reer hebel waxa la yidhi waa gudoomiyihii gobolka awdal ummadda intaa leeg ee ballaarin ee awdal degtu gudoomiye u yahay waa la eedayn karaa waxbaa laga sheegan karaa waa la cambaarayn karaa xilkaa leh arrinta laakiin qolo looma jeedo inay rag yidhaahdaan annagaa la noo jeedaa oo ay qabiil ku sheegaan yani waa wax taariikhda waa taariikh foolxun waa wax foolxun soo kordhay wey waxaan leenahay xilka ayaa wax laga sheeganayaa reerna lama caayo reerna lama cambaaraynayo ta kale maanta waxaan leenahay waxaan ku celcelinaynaa waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa inaanu gurigaasi bedel la ahayn iibna ahayn waxaan u sheegaynaa cid kastoo arrintaasi qusayso siiba wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda wasiir kaahin gudoomiyaha gobolka oo ay markii hore anagu la sheegay inuu arrinta ku jiray laakiin ay iyagu baraaxeen maanta anagu soo galin ogeysiinayna gudoomiyaha degmada waxa weeyaan mas'uuliyiinta hawshaasi ku socoto fariintaasi ku socoto ee arrinta u dhuun daloola waxaan leenahay guriga cuqaasha ayaa leh 300 oo caqil buu ka dhaxeeyaa lama iibin karo oo muxuu ahaa waxa cuqaashu u dhantahay maahe 100 nin ma iibin karo 200 ma iibin karaan wax ka yar warkooga badaa haddii guriga la iibinayo cuqaasha ka tashan waxaan leenahay arrintaasi waa arrin ku soo korodhay gobolka waa arrin bulshada kicin karta sababtoo cuqaashu bulshada ka wakiil yihiin haddii arrintaas ay sii socoto yooyoontanka iyo arrintaa wax isku tuurtuurku sii socdo arrintaana aan wax laga qaban waayo oo intay goorgoortahay wax laga qaban waayo arrintu bulshada kale gaari bulsho intay gaari dhibtu way sii ballaaran wasiirka wasaaradda waxaan leenahay wasiir arrintaa foosha xun ee gobolka ka socota ee cuqaashi dhexdeeda ka socota guddi xaqiiqa raadina u soo dir waxaanan kaa codsanaynaa guddidaa xaqiiqa raadinta soo dirtay inaan wax gobolka u dhashay aanay ku jirin sababtoo dee joogay baan isku haysanaa oo nin reer baa maarta lala hadlay marka taana waxaan ka codsanaynaa wasiirka inuu guddi degdega oo xaqiiqa raadina u soo diro gobolka waxaan leeyahay waan arkay muxuu ahaa nimanka 9 nin ee madaxda ah 9 nin ee muxuu ahaa iyagu ah xilka aan maartay inaan garanaysa saaray 9 yidhi annaga maartay arrin wax walba naga go'aan anigoo u sheegay waxay oran doonaan bari ka maalin waan garanayaa
maxamed cuqaashi kumaba jireen maxaa ka mid ah maxaa uga hadlaya arrinta cuqaashi caaqilnimadu jaamacad loogama soo baxo caaqilnimada reerka oo ninku ka dhasho ayaa soo doorta ta kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ansixisa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shatiga aqoonsiga siisa 19 sano ka hor baan anigu haystay shatiga caaqilnimada waxa weeye inaan sheegto oo anigu muxuu ahaa arrintaas aan soo keeno aan ku faanfaano dee uma qaadin caaqilnimada anigu abwaan baan ahay abwaanimadu waa gifti ilaahay bixiyo caaqilnimadana reer baa dad baa bixiya sidaa darteed waxaan ku kalsoonahay abwaanimada bulshada Soomaaliya oo dhan ay u taqaano taasaan ku faanaa caaqilnimadana waan haystaa marka waxaan leeyahay saaxiibayaal arrintaasi waa gaf waxaan maqlayay iyagoo leh nimankii cuqaashii hadashay qaar ka mid ah hala noo soo dhaadhiciyo waxaan leeyahay oon ku celcelinayaa 300 oo nin baad meel kaga dhacdeen 300 oo reer horjoogayaalka ah ayaad tiraahdeen ma jiraan waa ma yeedhaan waxaan arkayaa waxa loo haysto muxuu ahaa nimanka labada caaqil loo haystaa inay tahay dad aan waxba garanayn oo dhigala oo hurdayna u kicinayaan intaan baa lagu haystaa haddaba ma dhigalin lama dhigala ah laakiin ummaddu waxa weeyaan marka ay baraarugto waa laga yaabaa inaanu dadku hore soo kicin laakiin marka la baraarugo nin walba halkiisa ayuu muxuu ahaa wixiisan ka difaacayaa waxaan leeyahay arrintaasi sida ugu degdeg badan cidda ay khusaysaa ha u gasho mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan leenahay guriga cuqaashu iib maaha guriga cuqaashu guri kale laguma bedeli karo haddii la bedelayana cuqaashu iyadoo u dhan ama la iibinayo ayaa arrintaas gali karta warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal